maxay salaadu uga khayr badan tahay hurdada maxaa yeelay hurdadu waxay jawaab u tahay naftaada kuu yeertay balse salaadu waxay jawaab u tahay Allah subhanahu wa ta'ala oo kuu yeeray salaadu waxay ka khayr badan tahay hurdada maxaa yeelay hurdadu waa dhimasho salaaduna waa nolol waxay ka khayr badan tahay hurdada maxaa yeelay hurdadu waxay raaxo u tahay jirka salaaduna waxay raaxo u tahay ruuxda waxay ka khayr badan tahay hurdada maxaa yeelay mu'minka iyo gaalka hurdada way wadaagaan balse salaada mu'minka bis ayaa tukada dadka salaada subax tukada waa koox la waafajiyay khayrka wajiyadoodu way ifaan sujuudahoodu way iftiimaan waqtiyadoodu way barakaysan yihiin haddaad ka mid tahay Allah subhanahu wa ta'ala kumahdi fadligaas uu ku siiyay haddaadan ka mid ahayna Allah subhanahu wa ta'ala ka bari inuu ayaga kugu daro maxaa salaada subax ka qurux badan fariidadeeda waajibka ah waxay ka dhigaysaa mid ku jira dimada alle subhanahu wa ta'ala ayaa ku ilaalinaya sunnooyinkeeduna dunida iyo waxa dhex ahaadaba way ka khayr badan yihiin quraankeeduna waa mid mashhuud oo la xaadiro inna qur'aana al-fajr kana mashhuuda walaalkayga sharafta badanow walaashayda sharafta badanay ruuxii shay ku dul noolaada wuu ku dul dhintaa ruuxii shay ku dul dhintana waa lala soo bixiyaa haddaad muuqaalkan daawatay ajirkiisa aad heshay haddaba kaligaa ha isku koobin dadka kale u gudbi maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad ka hesho buuro ajir ah adigoo u niyeysanaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco qof salaada subax dayacay bishaarayso walaalka tukadow salaada subax haddii aad gasho masjidka oo lagu tukanayo salaada subax oo aad aragto dadka tukanayo aad u yar ogow in Allah subhanahu wa ta'ala ka doortay adoomadiisa wallahi qofkii ku tukada salaada subax jamaaco qofkii ku tukada salaada subax wuxuu ku jiraa dimada alle ilaa uu ka galabaysto kabaha qof cayrah oo faqiir ah oo u socda masjidka salaada subax waxay aad uga qurux badan yihiin taajka la saari lahaa madaxa boqor hurdaya haddaad markaad rabtana iska hurdo markaad rabtana iska soo kacdo salaadahana aadan ilaalin muhiimadda aadan siinin weligaa murugo ayaad ku jiri doontaa maxaa yeelay salaada ayaan iyadu muhiim ku ahayn sida oo kale alle subhanahu wa ta'ala muhiim uma tihid oo mar waliba murugooyin iyo dhibaatooyin ayaad dhaxda kaga jiraysaa salaadu mar waliba waxaa lala xiriiriyey wanaaga iyo liibaanta u kaalaya liibaanta xaya cala alfalaah xaya cala alfalaah walaalkayga iyo walaashayda muslimadda ahow haddaba muuqaalkan u gudbi qof kastood la jeceshahay wanaaga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh